أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وحوي من الصدحات لو أرمود بيسود احتساه مروح يري ضدك وعوق على سياء قضية قوانين وضعية يكون عمان عالم إسلامي مرنا wuxuu yiri xaakimka muslimka sheeganayay oo gaaloobay oo ilaahay ku iftiraaday oo inta baadil xukumay yiri waa xukunkii ilaahay oo ninkiisa u marin habaabiyay maxkuumkii kaaba wuxuu leeyahay waa muslim buu yiri. marka mid hore qawaaniin wadciya ma aha wax ninkii leeysatay ummaduhu waxa lagu haystaa iyagoo kitaab ilaahay u soo dejiyay oo iimaanka shardi looga dhigay baa inay kitaabka ilaahay rumeeyaan waxa loo jeedaa iimaanku waa qowl iyo amal iyo niyo weey. marka kitaabka quraanka ah inuu ku amal falan baa loogu talagalay. iqaamatul kitaab baa laga rabay hatta tuqiimu tawraata wal injiila wama unzila ilaykum min rabbikum weey. iqaamatul kitaab baa laga rabay alladina in makannahum fil ardi aqaamu as-salata wa aatu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. يعني waxa loogu talagalay yani kitaabka ilaahay inay toosiyaan an aqiimu diina waa lagu ballamay nabiyaashii oo dhanba. marka ummadu kitaabkii horta ma ka tageen mise kama tagin waa meesha taala. ma ka tageen mise kama tagin kitaabkii waa laga tagay. kitaabkii laguma kala baxo mabaadi'da ugu waaweynayad oo kitaabku la yimid ninkii khilaafo jibiya waxa weeye sharci oo loo celiyo oo lagu xukumo lama haysto. كما أنت وشريك يا إلهي سبحانه وتعالى وحر لما دعوين هذه الدعوة حقيقة الدستور كفلا في بات الله دستور بالغرق معه عالم الإسلام ودستور بالغرتين كيف الدوبة وحوية دم بكم على دستور كي مارت صلاة كتسجد دم بكم على مارت تارك صلاة نمو أولو عقابة هي مجد كي مانع الزكاة نقول زكاة دي وحوية عقاب أطالة وشرعية وقرآن كوافق سلمجد. waxa weeye hadii jihaadkiiba laga fariisto isoo dhanba oo laga saaro maarta ku xisaabtanka wax dadkaasi dambi ay leeyeen bal waa la karaameynaya waa la shafaya. macnaha xuduudii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dejiyay oo muslimiintu dejiyay oo kitaabku sheegay kulli arrimahaas oo maanta ninka wadanka uu sareeyaa haduu ku khilaafo oo ku xad gudbo dambi ma laha. maxay wuxuu oranayaa ahdiga aniga ambalanta ku qaaday oo lagu doortay dastuurka xagaan ku khilaafay waranay wixii gaalada markuu soo xariiqday kalimadii ugu yaalay dastuurka taa uu ku xisaabtamaya kitaabka ilaahay waxa weeye fanabaduhu waraa dhuhureen yahuud iyo kitaabka ku dhaqmaaya aayad ay gafeen oo inkiraadina waxa inkireen waxa la yiri fanabaduhu waraa dhuhureen kitaabkii dhabar ka tuureen ومن marka kitaabka dhabar ka tuurtay ba caalam islaamka hogaaminaysa. marka horena hade waa laga awood badiyay oo dawladihii dagaalkii labaad qabsaday oo adduunka isku qaybiyay iyaga qaybsaday kadibna waa tacliintii iyo dhaqankii reer Yurubkii baa dadkii la wanaagsanaaday tacliintooda qaateen halkaas loo haajiray halkaas professor ka imaanayaan kuwaas xukumayaan ilmaaniinta. marka haduu leeyahay xukaamtu waa muslimiin haduu leeyahay oo hade isaga la yaabay mahayaba hade awalba kala hadalka waa lagu yaqaan hadduu hadalka taas ka wado oo waxa weeye ninkan isaga ku qaldan gaalaysiinta oo xukaamta ku gaalaysiinayo bil qawaaniin wadciya hadduu leeyahay hadaladiisi banay oo yiri oo xukaamta cilmaaniyiinta oo ku gaaloobayaan dastuurka ninkii qora iyo ninkii ayida iyo ninkii tiftirah waa gaalo waa ninkii lahaa weey ninkii soo hadlay saatirtii marka dadkii waday waa hadda shaki gelinaya cilad buu ka dhigayaa adduunkii oo dhan wuxuu ku gaalaysiiyay taas. meesha waxa jira ummado isku xiran baa jira walaa baa ka dhaxeeya ummad walba qiyaada leedahay talada waa midaysatay madax iyo barlamaan bay samaysteen kuwaas hogaaminaya talada ugu dambeeya iyaguna baqayr kitaab ilaahay bay ku hogaaminayaan adduunka oo ku raaceen aakhirana xukaamta ahlu baadilka maarta hadii la raaco iyaga la dabageli doona naarta loo raaciyaa si ilaahay sheegay yaqdumu qawmuhu yawm al-qiyaamah fa awradahum an-nar naar buu gelinaya aroorinaya. marka halkaas waa kelimad xaq ah oo uu rabo hadda inuu shaki geliyo oo isaga xataa uu taqriirin jiray
marka halka Allah baa ku jira marka iyo nifaaq baa ku jira beeshu dadku u sheegi lahaa arinta xumaanteeda iyo kufri inay tahay oo iimaankii oo dumay inay tahay oo ninkii hadda quraankii tuura iyo ninkii nabi maxamed beeniya isku mid weey kii ilaahay u sheegay yala iyo ninkii quraanka lagu dhaqay ma yiraahdo oo bal hal aayad kaliya duu diido oo meel uga baxaya waxa ma leeyahay oo kitaabkii oo dhanbeel ku turtay taas marka waa iska qaabku wax hadlaaya waa qaab dadka duufi gelinaya arintan uu og yahay isagana arinta taqriirkeeda oo ku badan yahay hadaladiisa waana sheegaa ilmaaniyiinta iyo shariicada daaqoodka ninkii raaca iyo ummadii qaata iyo dawladii oo dhan buu israaciyaa dawladii oo dhan buu israaciyaa jamaacatu al-i'tisaam wuxuu gaaleysay wuxuu yiri waxay qorteen waxyaabo kufri ah baa ugu yaala marka muxuu la yaalayaa dadku waa waxay u leeyihiin ama dawladda Soomaaliya oo kala dawladaha jira ama dadka isagu gaaleysayna ilaahay wax baadil ay qorteen way marka uu leeyahay kulligood oo qofna laga reebin buu gaaleysayna waa dulmi kale iyo khiyaano kale iyo been kale weey يعني إلهي سبحانه وتعالى وحي يري مركا الله يهودي النصارى انت الحصي قال لي النوعيه ذي بل من امن منهم بالله قفك اللهم اياه وبالتوحيد كلهم اياه من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا بل عمل صالح سميه فلو اجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا حزن اجر كود الهي احجب وجرا وي marka ilaahay dadku rumeeyeen isaga in ka yaqaana dadka amal falay oo amalkooda la aqbalayana ilaahay uu taala subhanahu wa ta'ala qof oran kara dadkii oo dhan waa gaalo oo wax muslim ma jiraan adduunkan qof oran kara ma jiro laakiin aamadii wuxuu rabaa hadallada yaqaaniin inuu maartay hadallada yaqaaniin dadkii baa la gaaleysay wuu og yahay ummad markii la xukumayo dabaqada xaakimada ah aqoonta ay faafinayaan oo rumaysan yihiin iyo kitaabka ay dad ku dhaqaayaan in laga fiiriyo oo marka la yiraahdo dadkaasi waa kafaro bal xarifaad maxal weeyst waxa lagu haystay inay musaylada rasuulullaahi yiraahdeen maana isakaad inay kitaabkii shariicadii wax kamid ah inay ka baxeen bal weeyst wala dagaalamay marka ummaddu hadii mar isku duuban tahay oo arrin kufri ah ama shariica ka baxa ay ilaaminayso waa og yahay xukunka halka in laga xukumayo xukunka halkaas ka dhismaaya wuu og yahay aad buu yaqaanaa laakiin maanta wuxuu ka soo horjeedaa dad uu raadinaya eebal buu raadinaya markaas wuxuu yaqaanay ku tumanaya taqwalaanta marka waa halkaas ka muuqata macna wuxuu yaqaanay wuxuu ugu tumanaya ninka dambiilaha loo arko ugu tumanaya ninkan waxa weeye waa nin u bareeray dariiqan hadii baraanku dhacayaan iyo hadii amaana waa isuumi yani iyagoo shanta la oran jiray la caayay jiray shanta nin bal dhis yani maantana kumanaan bay marayaan dadka islaamka fahmay markii horena hadalka baraanku anaga nama islaaminin oo dariiq ilaahay uma leexanin maantana waxa weeye dadka tirada badan kuma kibrino oo nusus ilaahay kuma qaloocinayno حق سوي هاي بانو مرر بوشينا هذا يرنا يا دام بدناي هذا waxa weeye codkiisan waxa la moodaa inuu ummad badan oo aan islaam ah meel ku og yahay ee ajriisi uu ka shushubahadka yaani ku fasirahay waxa rajeenayaa in ku jirta hadal ah caalamka adduunka saaran inta islaamka sheeganaysa waa shahaadanaysa boqolkiiba 25 waa ruucaasna wuxuu yiri laga heli maayo boqolkiiba qof tawxiidka si fiican u gartay oo fahamsan laga heli maayo marka caalam islaami oo dhan boqolkiiba walba hal laga heli maayo leeyahay balarag inta kale maxay tawxiid ma haystaan taasa ka garanaysa horta inuu wax og yahay isagoo og baadida jirta inuu haddana suura u dhigayo oo markaana uu leeyahay caalam islaamigi oo dhan baa la gaaleysiyay oo dhan buu ku darsaday ma ahane waxa weeye waxa la gaaleysiyay kufriga daahirka oo muuqda oo ummaduhu ay qaateen oo madaxdii iyo intii raacsaneed ba ay soo galiyaan la nafiin maayo lama nafiinayo muslimiin sax ah inay meel walba joogi karaan oo joogaan haddaan rabno yani ayaana garan ama aan garanno isku mid qof walba ilaahay uu islaamay ilaahay uu ajir ka rabaa inay jiraanna waa ognahay oo dad aan tawxiid kuwa aan naqaano waa jiraan kuwa aan aqoonno waa jiraan marka qawaaniin wadciya وقوانين أنا كتاب لقوا بدليه يعني كتاب كلاه مكان كيسيبه الجليي سواء واحد بلوع لنا هي سواء للدليشنا هي قلوب كي أرتيكل هبل بالدليشنا هي سواء لو قارنا هي سواء كتاب
هذه آية القرآن تلاقي قفك تارك صلاة كم حق عقاب لو بقول وين وعلى أورنا يا أرنت الدستور أهم وما أنصحين ولي والدستور كنتين شيران لما كنت الدستور كنتين هاي أو برلمان كنتين شيران ما يورن تارك صلاة كهل الدين ما أورن إلى إيرادان إلى أمر كيس قادم إنه معناه أساس كسرنا إلى الدستور كمارت لما كدستور كنتين هاي أو قوانين كنتين هاي أو مشرعين إلى يسكسر رعان أما أغلبية دول إتراضه سهل يلا القرآن كله على قد يمركه وح معلق وحكو علقيها برلمان كونه وقلاده بس ماشي برلمان كأوقلاده فيه على قانونية وكفر صريح وي كفر صريح إبليس هل أمر بكو كفريه ومارت اسجدوا لآدم وجديد قانون واي ساسو من الذي أقبح مركب مداس واساس أو عالم الإسلامي يا عالم الإلماني هذا ما أنت حكم كوحك حرمها والدولة ده للدورتي أو شعب الدورتي حكم كإليهين بوضنك لو حكم على الأورنية يعني حكم كله كرتي ما وحكم كوحال السياء ضد قوارث ذا يعني كير بان الدلها يعني كير بان حرها يعني يجا أود لما يجا لون سبيني يجا لون سبيني دار ردة لليه دار بدعة لليه وحسب وحوي ضد أود مشكلة وي واحد شري كرا ضد مؤمنين وكل حنون لما تدينا وبنا حنيفة دحية كسب بحي قار بريكا وحيابان كتشري ما marka meesha uu leeyahay qawaaniin wadciya wax lagu gaarsiiyay fududeen way macna qawaaniin wadciya miyaa lagu gaaloobin waa lagu gaaloobin yani ma runta sheegtid qawaaniin wadciya soo taad ku gaarsiinaysa ma hadu laftiga qawaaniin wadciya waa lagu gaaloobaya gaalnimadu markii ninkii lagu doortay arintaas oo dastuurka ilaali lagu maxkamadeynayo oo shacabku mudaaharaadayaan dad dastuurka khilaafo ma kaliya dambiga saaraysa hadana madaxda waxa soo saaraba macnaha شعب كاسوسار سلطان الله ما هين قف عد بحيابه وحوي وحو دورنيا إله غير الله بدورنيا وهذه واحد ترهيب كاسا إله كدكت كان وحو يركنا إله كدكت هذا مركب تركوا إله وترى بصبح يا وذي لها وشعب كي واحد كدكت ضدك إلهية دورنيا حتى ما أنت روح على شعب كي إلهية دورنيا ومسلمين من تناقض كلمة تناقضات كلمة وعيب دين إلهي لكن في أنا بنام قاعدة ذا إذا كود ما فينا دينته وحويه حسي ولا طريق مستقيم وي ربي غنية وإن كبر هين إنه أبهرين بعدتي وحلا جرب كتاب إلهي السلوي هي إن أشرك اليمين ولا شمال أبهرين بلدوني ما شعب كواحد كوجا ليسس دور شو دورنا يان ملحنا نواد جالسيس حتى لو حلا نكاسي عالم إسلامي وحوق جالسي قوانين وضعية سهلة يعني أما واحد من وطوك الجاية ما أساس ما لحظة ولا دورنا يا بابا أكبر إن دورنا هي شعب كيسوب دورنا هي تعال كايس كده مدة لبعض أنا جينا للدريران ما هني حق إلى الدريران يعني حقا دجال كي سنة هذا القرآن كي كتب الله يهود النصارى مرن إكراه نغنين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى ملة ولا راعه قلبي كليين موحدين توان عبيهم ولا دجالهم هي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لي يهود ينصارى دي وادك حساب بري يجا نكسو قلن قاطان يجا بروفيسور كسو دغاي يجا مارتي دكتور كدغاي منهجكودي iyo nidaamkoodii bay qaateen marka ma waxa u maleynaysaa inay marka jecel yihiin ahlu tawxiid ma jecla dadka qiyaadada haya ahlu tawxiidka adduunka u neceb yihiin waa la dirirayaan shacabkuna aamo way iyaga daba joogan iyaga soo jeedinaya culimaduna shacabka kama marmaan marka bay leeyihiin waa runo waa khawaarij bay leeyihiin dagaalkii dhinac uga jiraan marka kulligooda dalamaha way waa daalimiin caamadii iyo culimadii iyo amaaniintii intaas oo dhan isku bahaystay in la istaajiyo kitaabka baadilka kitaabka xaqa ana maaragtay la tuuro bal ninkii u dhaqaaqahay la isugu tago la caayo oo magac loo bixiyo dadkaasi marka halka waxay ku yihiin waa daalimiin way kitaabkii Ilaahay soo jeedo waxaa jirta marka mid dambe wuxuu yiri xaakim baa qof baa waxa la yiri hadaa xaakimka muslimku xukun tigin gaal baa tahay oo ma la xukumo zalalla فولاكم الكافرون بحاكم كل يري حدثك شعب كنا وحال يري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مركب قال لي سؤال هذه قال لي بروح يري بين الشيء يري وكان حكم في وارد وكان إلهي با يري ويري لك مفتري يفتري على الله مال أن واحد لي كتابه كما وصل أركين كما أرق قصة وادسة يا معنك
waxbuu inta dhiso oo dadkii maarta u suuradeeyo buu ninkii u nisbaynaya macnaha kadiban uzuuran buu u nisbaynaya xaakim aayad inta bedelay la jehraayo le maarta ilaahay baa saan yiri kama hadlayno kama aan hadlin yani isaga inta abaabulaya tan kale ma wuxuu maleynaya حاكمك صورة لو قالوا يا تاكلي أنا تايمي وملانيا يعني قف غير الله وحكم حكمي أو أن قالوا بين لكن دمبالي باتنا من غير الله وحكم حكمي أو أن حتى دمبالين باتنا ومجتهد ولا سوق هذا حكم كمرك هالمرتبة معها هالسنة معها إنه أبي هنا وأبغى هاي وسيل يليه لا وحوي ويا دور مركب لوسيهم كتابك طلقوا يكون دفاعان يمذهب كل يكون دفاعان معناه اسكندر يشنايا يعني لما قبيل بقى أركز الدجال ما هي مثل البوذات بقى فاتحة كسر طفاية وأقول لساني سامبوليه وأنا إذا تعي دجال مولي إن حق تاجين بوشرحها كسنح كواس وصوت المام هي وقت المام هي حق تاجين دجال مولي مركب من كان معلوم بقى ماشوا خباه والنصوص تروايون اللي فيه وح عبسي إلهي وعلينا يسامجت مركا حاكم كان هذا يسوي اللي فيه مسكح يسكدياري حكم كيسان يسكم مغتاب لأن إلهي كو افترانا هي إنه سمارت يعني وأن تقول على الله ما لا تعلمون وحليلي شركي حتى ولا يسر مري يعني سورة الأعراف أيضا كتشفتي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شركي ما مركا أسرّي هذا لو على ليس سرمي وأن تقول على الله ما لا تعلم مركا من إلهي سكسأة سوى علمي أولى ولبا بدلها هي آياتي بونين كان مسلمي بهذا ماشي اللي يمد وأنا وح سوى اللي في مال أن ضد ولا داعيين متشفتم على أرض أن وحوا خينا وتربذيين ولا جارك كره إيه لا جارك لها وبين يكذب ويا إنه يراده نكاس ويري ومسلم لما الله لكن هذا حاكمك مجرتا حاكم مسلم هو جور قلي وأن قال الأورني مجرا وكقرنا يا هذا محاضرات ذكر وكقرنا يا تا كل حاكم وجور سمي قلبه كذا يا محاضرة لكن هذه الله نقضى كتاب الإسكال يوحي هرميلي ولا يهل الدورة ما يسوه رنت شيء يعني ملاذا كسر قاطبا نبى ندلمي كاسا نيكي لدلمي أسود دعوة يوحي يعني كاسا يدلمي marka xaakimkii gartii uu hadoo rogeli waayay ama wuxuu leeyahay warbax daalimi Allah maartay gardarane iska oranaya ayad quraana u nisbeen maayo ilaahina u nisbeen maayo laakiin isaga wuxuu kula hadlayaa hadal xun oo ku cayriyo kula hadlayaa kii kale faroo ka qaadanay ninka muxuu sameeyay joor busay yani taasna waxa kugu daliila markii yani nimankii la oran jiray Abdulmalik bin Marwan iyo wiilkiisii Waliid ahaa iyo wiilkiisii Suleymaan ahaa ragaas lama gaalaysin قال ما أهين وحلقة سقايا يا أمير المؤمنين بيسلك في كلها تجري حدود صحابي سوق قاري الدماغ صحابه ويسأل كلام يوحى يعني تابعين تيجي كلهم وحوى أمير المؤمنين بيجري الماء يا أمراء المؤمنين بيجري حتى أعمال صالحة أركساء وعد ملك لونس بينها نينكي كذاب كهاي ونينونا شيخ تمركب دلي نبى وحي عبد الملك أفعاشيس مدة أنك حسده هو تصوير معه وخير ونقول إيريو كوضع نقول إيريو مركز لمن كاس حكامت أخاذية لهايين عمر بن عبد العزيز واتي أو لين لا أمانه خليفة الهاشد لو يقان لمن خوارجته وحيران قال يسي أبي شيء هذا هذا كل لمن كحون كأوهري وقرابة قال يسي بيران وحير ده يجي ما ينقالوا من بير مكتب سوحيران وحن إلهي تجيب ويحكوا حكمه لأنك خوارجته هير markaas wuxuu yiri waa dambi ay galeen buu yiri oo waa og yihiin sida xaq u yahay waa og yihiin waa dambaabeen buu yiri كثيرية هذا قصص كامل في التاريخ ابن الأثير يوم دميسترن بيكوتالله لمن خوارج هاي وبحاي ومركا ويري أنا قبل إلهي درت وتاجنا هاي هذا إلهي درت وبحدين يصدر وفدي أنا لن نقاش ومركا لون اللي صدر لون نبغى وأكدر هلا مركا حكامته يدم به قال يسين هاي يعني كقل دينهم بكذا دعيي ونشيء كان كلام مركم حكم كقبت عمر بن عبد العزيز وحول سميه وحلي يراده فد مظالم وحي ضدك اللي قدوا المسلمين تا وحكامتي وراء يو أسكره هذي أي مارت ضد أي وقعتين وحبول أي ليهين وكلا أي بير أي حول أي ليهين أي
ay waqaateen oo joor sameeyeen wixii oo dhan baa la celin jiray ma labadii sano oo joogay waxa la yiraahdaa radul madaalim buu ka shaqeynayay gobolada oo dhan meel walba wuxuu yiraahdaa dadka madaalimha laga qaado yiraahdaa joogka hore laga qaado nimanka khawaarij markuu hadlaayeen wuxuu yiri anigu arinta makaankeeda aan dhigay yiri ma waxyaabaha ay sameeyeen oo qaldanaa madaalim baa u bixiyay madaalim baa u bixiyay intaas ku filan buu yiri intaas ku filan idinka way weligiin ma lacana dambi fir'aun iyo iblis ma yeelaneen kaas wuxuu yiri maxaa idinka banneeyay ina iblis lacanadi weydaan يعني إبليس فرعون إنه مدير إنه لا ولا شيء حوجا ولا سنة إنها مارت كفارتها العنادي وينان محايدين باللي أنا قرابتي دي عن دين تكبحن إنها العناد محايد واجبي بي مرك أنت أرن عام أويه ولا اسمه خلاف سنة لمنكو إنها لو بقى كرين مارت دين بقى كل عام النبي عليه الصلاة والسلام لمن بقى إيمان دون حكامه تلعنونه ويلعنونكم كانوا مسلمين تلعنها يجنا العنادها إيمانها هي وحوي لمن على الاستعلان بإيمانها هي اللي يروح حكم كحن كثيرا أفلا ننبذهم يعني لا دقالهم يسوي لا ما أقاموا الصلاة أنت صلاة دعوة هيان وصلاة أي تكذب إليهين تارك الصلاة كان الدين هيان إقامة الصلاة وحب عنها يعني وحي صلاة تكون ويان إلا عقابها كإيمان السماء مركز تاسوا قرينا يا معنا تاسوا قرينا وحي من ديك علي وديك علي وأنا قالي سين يا تركرا حكام الإسلام نحن بدنا بديك علي معنا يقالي كل حتى الجالسية قاب منافقين ما لو جالسين هي حجاج بعض كقار كيران كافي بوها كفر النفاق بيكوضان يعني واحد ظاهر كمسلم وكم لها والود ما تكونش النعور بصلاتك حرت مركا لمن مركب دنبالها هي إن صوب حيان النبي قال شيء وأنا أرين لي قام طريق اللهم راهي وي هذه مركب اللي يريد من باجور سميي أو إح سميي أو مركز نك قالوا به هي تاصل وضع يسوون روحه بدلي يعني خيار علمي وسمي وحو بدلي نيري انت رايد بدلي يري هذا من عند الله يري تنبا الهي سودي شيء يري تاسو كدغاي تاسنا ميش ما اولين لومنا هادين كتابن كو قرنا وي تاس marka halkaas uu baxaya xaakimka marwa kaafir buu ku noqonayaa oo waxa weeye kufriga yani kitaabka ilaahay sida hadda ku jiro kale كتاب إلهي بمعنى ما أركان باللغاته وحيلين قال ذي وأنا قوتين السوق قال ذي كانوا بحسنين ممكن قال ذي يسكرعين قال من الله رأي كرا دي بقدين لقى بقى هي من الله رأي كرا ودين ثم لو تكرا عندنا واحد وهي الدستور واحد بديتينها هي شرعي قال لي برلمان كرجع إسكال الشرع ديتينت أنا فلين بنا مدحوينه إنه فليوي لما كان ديتيالوي ويسكم وكفار كفر الصريح ولا بريري وكفر الصريح ولا بريري لازم ندي كرا nin kitaabka ku xukumaaya meel walba oo yaa caalim ay culimadii taabiciinta ururinaya oo meelaha u dhiibaya oo xukunka iyaga u dhiibaya idinka sharciga yaraanka xukuma leh oo marka meel joor ku sameeynaya maalin dambaabaya nin uu necab yahay yani dilaya hatta Abdul Aziz kaas wanaagsana intuusan amiirka noqon oo wiil uu dhalay Abdullah ibn Zubair darajeenaya mase waxa dhalay Zubair Khubayb ladisri oo isagu ciqaab oo amray in la ciqaabo oo ciqaabta ku dhintay buu wuxuu ka baqi jiray markuu dhimanahay isii xagee ka galaya hebel oo intii ka shalayd marka nimankaas khaladiye galayaan waa dambaabiyaan oo bini aadam weey sida ninka muslimka banaanka joogaba u dambaabo nin baa khamradii xaraam ilaahay yiri ku dhacaya cabaya sharciga diinta kama saarin mid baa faaxisho ku dhacaya sharciga diinta kama saarin waxa weey ciqaab baa loo sameeyay adduunka ciqaab baa loo sameeyay wuxuu yahayna waa la sheegay martabada uu joogana waa la sheegay marka xaakimku dadkii uu kamid yahay sida oo ninkaasi banaanka jooga xaakimka ahayn ba uu qof u dili karo ya xaakimkuna qof u dili kara ma way sida dadka qaadigu hadduu khalad amro oo qof aan dil lahayn uu dil ku xukumo yani markii arintii lagu qabsado oo xaqi cadaado diidii waa laga rabaa diida loo saaraya Umar bin Khattab yani haween ilmi isku soo toortay ودتي ثلاث شيء سواء واحد أدو أمير المؤمنين بأهيد شغالة جودنا يسي جوده حتى ما ده تري مري جوده اللي يري جوري هذا مار نمان بالوار أركي واحد ويري حتى ما دو مركز إنسان نحذي بيني سورد مركز وصحاتي وحول تفشل يدتي مركز اللي أدو الدم بكام ساعتنا علي بودي علي بوجي جوال لو خياني بيقول فن لو مشي يمي علي قدام ويري لهين جوده النود بقلتي مركز وحول أمري معها أنت إن إسا سارنتي وكسر قاعد عمر
marka ninka xaakimka ah hadduu dulmi sameeyo oo naf dilo sida dadka u dili karaan ciqaabtii buu leeyahay macnaha qisaastii haddii camdi u sameeyey qisaastii buu leeyahay haddii uu maaragtay ijtihaad ay ka ahayd waxa weeye maalkiisuu ka bixinayaa khasaaradu geysto waa sidaa macnaha marka ninkan xaakimku marba wuxuu yahay ku kufrinayaa alxukm bigayri ma anzala allah marna qadiyada ka dhacday waa qadiyad dembi ku awey dembi ku tahay هذا واحد أركيس نمكي حكامتي نم عارشة وليد بن يزيد ليرام وحكم كقبتها السنة يرجعني يا وحلي خمر يلوشة خمر يلعبي وأنا وقع مركز والدي لكن كافر بوها ومفتد بوها لما أرم ونن الود لي مارتي دنوبتي وسمينا يكوك عن والود لي بوها سيدا مارتي يعني تاريخها لقرها يدو هذا الله هذا هذا كلام دوينهم oo siyaalo kale looga hadli karo laakiin taariikhda mu'arrikiintu waa qorayaan ninkaas inuu khamrada lagu sheegi jiray iyo dambiye kale xataa lagu sheegi jiray marka ninku macsuum ma aha xaakimka ah duroo dambaabaya xaakim marka mudni baa imaanaya oo dambi ku dhacay waxa kaloo imaanaya nin ijtihaadaya oo khaldamaya marka muxuu wax ku xukumay xukun ilaahay kuma xukumin wama lam yahkum bi anzala falakum al-kafirun kulli yirna maaha waxa weeye mujtahidku idaa ijtahada fa asaaba falahu ajran وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وي سيادرت النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي كل الضارمي وحيري هذا قولوا حسن قد يقال عبد ذي هريريسد أو مركا أي كيرادان وإسليب إن حكمك إلهي إن نقول حكميس بارسكو دينا دي كيرادان وحتى هذا ما حكمك يسكليبا له حال وضع حكمك يسكليبا أنا اجتهاد هي شرع إلهي كو اجتهاد هي xukunki ii soo baxay isku dhiibo way maan ma ahan aniga hawo ku xukumayo kitaabka ilaa kasoo horjeeday aniga hadalkayga qaata xukunkayga isku dhiiba waa hawadeeda amaaha xukunka anigu xukumo oo anoo istinbaadahay shariicadii ku raali ahaada way macnaa isku dhiiba marka nabiga taa kula taliyay maxaa yeelay wuxuu yiri xukunka ilaahay ina asiibi doonto in kale ma taqaanin ila daa'iradu xukunka ilaahay baa in xukumaya oo isdhiibaan oo aniga ijtihaadkii uu qaldan yahay maxaa ka imaanaya dadkii xukunka ilaahay isku dhiibeen xukunka ilaahay lagu xukumo sooma marka xaakimka nooc saasa jirma oo iyagu baabul ijtihaad arintu ay ka tahay nin jihaadayay baa maartay muhaajir la oran jiray ibn abi umayya yaa waxa dhacday waxa loo keenay yaani haween nabiga cayday oo gabay iyo wax saas ku cayday magaalada ilkii ka bixiyay xukmullaahi ma aha marka laakiin ijtihaad waa istihshaab islaahay soo maadaama nabiga ilaahay cayday كبدن بيجتهد إلا الدليل أهيبا مركا أبو بكر وقصوا عنانتي وحيري مثل هذا مبنانين بيمانه يعني إني هاد دنبيجا إن لو قد له وعيد إن بيجا إن لو قد له أهيب معه ما هين إلى الكاك بحسد سلا إنه عنانتي برجينا يا خبر سلاها مركا حكمكم مركز سيالة بدن بو كل ما نكره dadka inta adigu marka wax u sharaxay oo wax u qurxisid oo tiraahdo xaakim halkan fadhiya oo kitaabku xukumaya oo marka la soo aadiyo kitaabada uu kala saar leeyiri oo baadil inta xukumay yiri hada xukmullaahi yiri hada xukmullaahi ka xagee looga hadlay taas kaliya miya marka xukaamtu imma sadad baa inta xaakimku looga hadlay uqtuluhu dilay oranayeen nadan buu dilay marta xajaaj ilaa uu yiri marka daba ninkii soo xukumay inuu gaal yahay oo gaaloobay dagaalkii dawladda islaamka la dagaalamay inuu ku gaaloobay ninkii qirta bal isku daynaya dadka badan musrif buu ahaa dagaalkii oo maartay fidnadii thawratul qura wixii ka dambeeyay dhiga badan daadiyay dadkii la dagaalamayay oo markii dagaalkii istaagay ama ay caradeen waa leynayay ma kii cararo gadaal laga soo qabtay waa dilayay Saciid bin Jubayr buu dilay culimo badan buu dilay marka جور كاسو ما دعاهي لمن حوغا كروم با جيري oo dulmi badan wata liman marmar dhifa maarad xawdi ka dacaahay ba jiray waxa soo jiraan xukaam muslimiin bana hadda ay taariikhda ugu jiraan dadkii waaga la joogay waxay nooga sheegeen bana la qaadanaya hadda anagu ma xukumayno dadkii hore laakiin dadkii mucaasiriinta ah ee la noolaa oo ku daba tukanayay iyaga halka ka yiraahdeen kaasa soconaya diinta waa naga yaqaaneen xaaladana waa naga ogaayeen ay meesha yaaleen macna marka qaabkaas kale dadka loo lumiyo amaana cilmiye ma aha khiyaana cilmiye way
qofkii baa maartay wahmi baa la gelinaya ninkan halkaas u jeedalay ba hada kitaabka dhan baa duuban hada ajiisa qaata fiiriya waxa lagu fasirayo bal fiir intaas kuna qof baa akhrisatay oo ajalaad yeesatay bal fiiriya inay maartay ka fahmeen oo ka qaateen yani arinta saas inay ka qaateen marka sida mas'aladan uu daciifiyay wadaadku qawaaniin wadciyada wadadku gaalaysiyo oo xataa doorashada ninka gala uu ku gaalaysiyo buu hadda maanta khafiifinaya maadaama dad uu dagaal kula jiro khafiifinaya xukaamtiina soo og inay jiraan niman aan ilaahay iyagu ku iftiroon dambaabahaya sida dadka u dambaabahaya waxa xukaama inay jiraan isoo og buu wuxuu ka soo qaatay midkii muftariga ahaa oo aayadaha bedelahay oo la sidii yahuudi hada min indillahi la buu meesha keenay oo marka kaas inta fasiray wiir kaas u jeeda kitaabku marka yaa la weydiinaya muraadka kitaabka hadalka kala ahaa yaa la weydiinaya hadalku maradu sariixayn oo xataa xaakim kaliya la yiraahdo ninkii qoray baa la weydiinaya xaakimka nooca oo la jeeday xaakim waa badan yihiin mid cilmaaniya oo maartay kaafir oo quraanka wadiidan baa xaakim la oranaya mid maartay ilaahay ku iftiroonayo hada min indillahi dhahaya xaakim la oranaya mid maartay joog sameeynaya soo ilaahay xusin oo aayadii xusin buu qofkii dulminaya ama xirahaya ama karbaashaya waxaan ciqaabta u salahayn buu ku sameeynaya waa jira kaasina xaakim baa loo yaqaanaa nin baa ijtihaadaha iyo ijtihaad ku qaldamaya xaakim baa loo yaqaanaa xaakimku marka sifooyin badan ma qaadan karaayo midaan kaliya maxaa dadku ugu qorxis midaan kaliya maxaa dadku qorxis soo khiyaana cilmiya maaha khiyaana cilmiya soo maaha diinta lagu dagaalgalayo ordinta lagu dagaalgalo diinta waxa la rabaa ninka aad nacabtahay markuu xaq ku taagan yahay inaad tiraahid meesha way saxiix meesha ku saxiix inaad tiraahid diinta kaarta sidqi bi kaarta amaan way bimastahfidu min kitab illahi wa ilahi kitab ilahi wa alhu ila shabi wa kanu alayhi shuhada kitabka marka ninka raba inuu iftoodo ama dad diin u sheego waa nin kitabki ilaahay ku ilaalsaday way waa inuu kitabka ru sheego laga rabaa amaana cilmiya waa daruuri qof mufti ah oo amaana cilmiya lahayn amaanatu naqli lahayn sidoo rabo wuxuu taxriifinaya waxa weeye waa kuwii loo sheegay in lagu qaado maahan wax kale lagu qaaday ma jiraan yuhuudda wadada qaadaysa nabiga alayhi salaatu wasalaam hadul qudrati bil qudra wax walba yuhuud sameeyeen umada laga helaya sufyaan bin uyayna wuxuu yiri man fasada min ulamaa'ina ulamada iyada kii xumaada oo islaamka maar dadka islaamka sheeganaya kii xumaada oo qalloocda فله شبه باليهود يهود رعا عبس الآن حكم الاسكريدايو آيات لقلوا عنها هذا من عند الله الاسكريدايو ومرة لليه معها وحوية وفله شبه باليهود بلي ومن فسد من عبادنا نمك عبادة البضان وحمادنا فله شبه بالنصارى وبدعوين بالله إيمانا يا سيدة النصارى دي مركب مسألة سوى أساس معناها وتجيو كهبابي طبعا وضعية وحوكو قال يسينا وارهم بل مدحوينا كريهم قال يسينا dadkii doortay iyo dadkii u sacabinayay iyo dadkii xaakimka ka dhigtay oo raacay oo dhan baa raacaya sida ilaahay kitaabkiisa noogu sheegay waxaan lagu soo talxiisiyo arrimaha si fiican looga hadlay kitaabka liyaado at-tajammu' al-bashari fi nadar al-islam baa inay israacayaan oo isku xukun yihiin kitaab dhan baa laga qoray adillaynu ku taagan yihiin oo qur'aan iyo xadiis ah marka halka loo doonto insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi